قبكم القاتا قردر الميلا إلى مدينة قبكم القاتا قردر الميلا إلى مدينة وحدهم بقرارو وذكا قراراتو وذكا بيتي وحدهم بقرارو وذكا قراراتو وذكا بيتي قلت بيحهم عنتي زي قوضة أودعان جمايلي مايان قرات طويو قلت بيحهم عنتي زي قوضة أودعان جمايلي مايان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ama daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Djibouti. caawa barnaamijkeeni waraysiga geeska Afrika waxa aan ku soo casuunay Dr. Cabdilwahaab oo ah indheer garad Soomaaliyeed waxyo badan kala socda amba u dhun daloola arrimaha geeska Afrika hadday ku tahay Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti ba. Cabdilwahaab ku soo dhawow idaacadda codka Djibouti. Waxaad u baahantahay bishii dhaweyd aad sii daysay qoraal dheer oo aad kaga warramaysay arrimaha dalkaasi Ethiopia waxaana aad ku tilmaantay arrimahaas Ethiopia ka socda amba dagaalada ka socda Ethiopia in ay Ethiopia qarka ku hayso arrintii ka dhacday Yugoslavia. Cabdilwahaab ma noogu laabmi kartaa qoraalka aad soo saartay nuxurkiisa muxuu ku saabsanaa maxaad se nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka hoose ee maaragtay dadka inta badan aan u muuqan ee Ethiopia ka dhex socda. maxamuud qoraalka dheer ama maqaalkaas dheer aan ku qoray waxaan ku qoray wargeys ka soo baxa wadanka Masaarida ee la yiraahdo Arab News oo si weyn runtii dadka afka Ingiriisiga ku hadla ay aad u akhristaan. qoraalku wuxuu ku qornaa afka luqadda Ingiriisiga ku qornaa wuxuu ahaa qoraal dheer oo maqaal dheer oo ku sameeyay wadanka Ethiopia. runtii waxaa muddo badan aan baarayay oo runtii aan rabay inuu u korgalo waxa dhabta ah maanta ka jira xaaladda dhabta ah ee ka jira wadanka Ethiopia. xaaladda imika ka jirto xaalad aad iyo aad u cakiran weeyaan. waa xaalad lamid ah xaaladda Yugoslavia ay soo martay. wadanka Ethiopia runtii maanta aan kula hadlayo waxa weeyaan wadan qarka u saaran inuu burburo weeyaan. waxaad arkaysaa gobolka Amxaarada waxaa ka taliyay iminka 75%
يعني jabhadda loo yaqaano Fano ayaa ka talisa gobolka Oromiya oo gobolada ugu badan ugu dadka badan ah runtii yani wuxuu ka kooban yahay ilaa 21 gobol 18 gobol kamida waa gacanta wadanka way ka baxday Prime Minister Dr. Abiy Ahmed gacantiisa way ka baxday waxaa ka taliya ururka loo yaqaano Oromo Liberation Front gobolka Tigray oo ogtahay in dagaalo ba'an ay ka dhaceen oo ilaa 600 oo kun oo qof runtii ay ku barakacday waxaad arkaysaa heshiiskii Pretoria markay saxiixeen ay dowladda la saxiixdeen iyo kii Nairobi ka dhacayba يعني waxaad moodaa runtii in gobolkoodii maanta yani ay gacanta ku hayaan oo inta badan ay yani shaafaltaynayaan oo doonayaan inay xukunka dib u soo noqdaan ayagoo runtii fahamsan yani waxa weye xukuumadda dhexe inay dhuglaatay oo jilicday ayagoo fahamsan maartay waad arkaysaa colaadaha cusboonaaday u dhexeeya soomaalida iyo cafarta maartay cafarta ka soo cusboonaaday gobolka city la yiraahdo runtii aad iyo aad yani xasuuq baan uu ka socdo oo runtii yani guud ahaan يعني ودنك إثيوبيا وأولوليا أنت وحدر يعني وحويان حق دقاله ودميا ويعني وحوي سعر بركي وحجاري هلكي وسرية أيو جاري إن شد السنة دكتور أبي أحمد برايم مينستر إثيوبيا حقوقه هاي وحا سدا قرطي يعني جامعة أديس أبابا يونيفرسيتي رسالة السميسي إلا هالمليون إن شان بقول أو كون أقفا يعني انتي إن تقريبا وحويان يعني 20 مليون تدخلوا وحيكونوا ليهين deeqaha ay bixiyaan iyo ururada international ay bixiyaan ururada macna caalamiga ay bixiyaan ay ku nool yihiin markaad fiiriso dadka Ethiopia ku dhimatay yani muddadii 60 sano uu hayay Dr. Abiy Ahmed waxay ka badan tahay marka la isku daro tirada dhimatay wadanka Ethiopia yani xilligii Mengistu xilligii Meles Zenawi iyo xilligii Haile Selassie marka la isku daro waxaa ka badan 60 sano Abiy Ahmed xukunku hayay inta Ethiopia ku dhimatay laakiin waxa moodaa inuu ku guuleystay inuu caburiyo oo cagta hoostiisa u geliyo yani waxa warbaahinta madax bannaan wuxuu isku dayay inuu caburiyo yani waxa weeyaan yani waxa weeye warbaahinta inuu caburiyo dadka yani scholarska ah ama dadka macna academiga inuu caburiyo oo ayna waxba ka qorin wuxuu runtii isku dayay inuu kiraysto yani dad lobbyista ah oo international ah oo runtii doonayo macnaha image-ka يعني لسه يعني ودنك إثيوبيا ومعنا إيمج صورة في عن كبحنايو أيو العقد بدن كبحيي سمركا يعني أن لود أدويدا يسرو فهمين وأدويدا ما يسرو قرانين waxa gudaha Ethiopia ka socdo inta waxa dheer caasimada Ethiopia waxa weeyaan wuxuu noqday abi the mayor of Addis Ababa noqday 30 kilomitir magaalada uu bixi kartid maxaa yeelay waxa weeyaan dagaal ka socdo hareeraha magaalada Ethiopia magaalada maarti laakiin image-ku asagoo bixinaya suurada uu bixinayo asagoo marka kiraysan lobbyista dad academiga oo international ah oo doonaya maarta caalamka inuu tuso Ethiopia ay caadi tahay waxa dhibaato inay jirin waxayba noocaas u tusay laakiin xaqiiqada dhabta ah ee maanta Ethiopia ka taagan waxa weeye Ethiopia waxa weeyaan wax xaalad akiran oo halis ay ku jirtaa دكتور waxa la oran karayaa arintan xaaladan Ethiopia maanta ay marayso Dr. Abiy way ka horeysay imisaad ku qiyaasi kartaa isaga mas'uuliyadda uu ku leeyahay arintan dagaaladan hoose inay sii socdaan amba ay jiraan qayb weyn buu ku leeyahay maxaa yeelay Dr. Abiy markuu ibaaday xukunka qabtay oo yani runtii ninkii asaga ka horeeyay is casilay waxa weeyaan waxa weey oromada way kacsanayd yani amxaartana way kacsanayd يعني وحويان يعني دبك مركا وحوي دبك بانت يمكن جرا متكير بوها مركا دكتور أبي يعني because of the bad policy يعني وحويان سياسة حمدها هيستدرتت قيب كان نقطي يعني دبك بانت توبي كجرا تصالح قصة قادرية دكتور أبي بركات فيرست يعني يعني وحويان ودنك السودان اسكون فيعنا ودنك إريتريا اسكون فيعنا ودنك الصوماليا اسكون فيعنا جيبوتي وحويان وحكد حي اللاف ان هيت ريليش با كان حي مر وحوي اسكو كعيا مر وحوي وبر يعني اسكو يعني وحويان ولاف ان هيت ريليش با في انجلش كلو يقانو مرنا وحوي ودغنتها مرنا way kacsantahay macna waxa weeye wadanka jiiraanka dadka jiiraanka la hoodil waxa colaad buu muujiyay taa marka waxay keentay in marka asagana waxa weeyaan
وكوجو ليسن واي إنه دجية حالة جودها إنه دجية كوجو ليسن واي إن جودها حالة ودجيو وحكي من كل جود بروح هيتاي إن معنا وحلو يقانا فيك نيوز وبعرت وحرنت وحويان يعني وحوق الصارو ومعنا وحويان يعني وربهنت وعبريو dadka academic oo caburiyo researchers oo caburiyo si marka Ethiopia is wax ugu sheegin marka laakiin taa daawo ma aha wax daawo u tahay ma aha laakiin waxa dhaqan baa ka jira wadanka Ethiopia dhaqan ka jira waxa waaye haddii madaxweynaha ama prime minister Ethiopia uu dareemo in yani wadanku faraha ka baxayo wuu is casili jiray kasoo bilaaw yani wadan mingista kasoo bilaaw colonel mingiste markuu arkay 250 kilomitir inuu caasimad la soo jiro wuxuu isku dayay Ethiopia inuu badbaadiyo marka waxa weeye wuu is casilay wadankana wuu ka tagay Meles Zenawi isagu dhintay ninkii ku xigay Xaylaban Sallam markuu arkay wadanka inuu kacayo oo runtii dagaalo sokay ay socdaan oo wadanka xisadiisa ay aad u kacsan tahay wuxuu ka baqay Ethiopia inay gacantiisa ku burburto ka baqay wuu is casilay laakiin ninkani waxa weeyaan waa nin doonaya Ethiopia inay gacantiisa ku burburto doonaya marka dhabta fiid xaaladda jirta waxa weeye walaal Maxamuud Dr. Abiy Ahmed gacantiisa Ethiopia ku burburi doontaa waxyaabaha yaab kale oo runtii aan aad u daraaseeyey waxaa ka mid ah maartay Dr. Abiy Ahmed يعني لبا اوبشن ايا اسارا ميسكا اسارا لبا ريموت ايا ميسكا اسارا مid waxa weeyaan Ethiopia inuu xukumo by force oo ku xukumo iron fist oo ku xukumo haddii asaga xukumaynin wuxuu rabaa Ethiopia inuu laba kala jibiyo Semitic and Cushitic Semitic waxa weeye dadka Semitic waxa isku dhahaa Amxaarta iyo Tigrayda iyo Eritreanka Semitic isku dhahaa Cushitic waxa isku dhahaa Soomaalida iyo Oromada iyo nimanka la yiraahdo Cafarta marka wuxuu rabaa inuu abuuro waxa loo yaqaan Cushitic kingdom maruu inuu abuuro hadda Ethiopia wuxuu ka dhisayaa qasri aad u weyn buu ka dhisayaa maarto oo ilaa 16 bilyan oo dollar ku kacaysa oo doonaya wuxuu soo diyaarinayaa boqolkiiba 7 Ethiopia inuu noqdo ayuu soo diyaarinayaa ayadoo maanta xaaladda cakira dalka uu marayo iyadoo dalku runtii yani waxa weeye xaalad yaab loo marayo markaan dhabta kuu sheego Ethiopia maanta way ka liidataa Soomaaliya marka dhabta aan kuu sheego xaaladda dhabta ee jira markaan kuu sheegay laakiin dadka Soomaalida ah ayaa ma daraaseeyaan wadanka Ethiopia laakiin Ethiopiaanku Soomaalida way daraaseeyaan Djiboutiyaanku ma daraaseeyaan Ethiopia laakiin Ethiopiaanku Djiboutiyaanku way daraaseeyaan marka dhibka jira taa weeyaan laakiin haddii daraasad dhaba lagu sameeyo wadanka Ethiopia xaaladda iminka uu marayo Ethiopia maanta waa ka liitaa waxa wadanka Soomaaliya xaaladda ku siin waa ka liitaa maxaa yeelay qowmiyadda Amxaarada ma doonaysa in qowmiyadda Tigrayga ay xukunto qowmiyadda Tigrayga ma doonaysa qowmiyadda Amxaarada inay xukunto qowmiyadda Amxaarada ma doonaysa qowmiyadda Oromada inay xukunto qowmiyadda Oromada ma doonaysa qowmiyadda Amxaarada ama qowmiyadda Tigrayga inay xukunto marka Ethiopia marka sida kaliya lagu badbaadin karo waxay tahay in qowmiyadda Soomaalida loo dhibo xukunka loo dhibo maxaa yeelay waa qowmiyadda kaliya maanta يعني waxa weeyaan haba yaraatee yani loolanka siyaasadeed Ethiopia ka jira aan ayaga maanta yani aan muuqanin marka sida kaliya maanta Ethiopia lagu badbaadin karo waxay tahay in Soomaaliya prime minister meesha uu tago oo markaa uu kala dhiciyo uu kala dhex galo qowmiyadahan waaweyn iska soo horjeeda haddii marka taa ay dhici weydo oo taa ay dhici weydo Ethiopia marka waxay maraysaa wadada Yugoslavia ay maraysaa si waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan ilaa 6 republic 7 jamhuuriyad inay ka soo baxaan ayaan filayaa haddii ay Ethiopia ku guuleysan weydo inay iyada isbadbaadiso maanta Ethiopia idaa u baahan in la badbaadiyo doctor waxaad tiri Soomaalidu ha badbaadiso Ethiopia dhinaca kale Ethiopiaanku uma haystaan wararka aan hayno inay dadka Soomaalidu ay ka mid yihiinba Ethiopiaanka oo marka dagaaladan city ka socda marka la dhageysto waxa inta badan soo baxda in la yiraahdo waa dad maaragtay dhul kaleeta haysta dad dhul kale degan sida ahaan oo maaragtay dawladda dhexe waqti kasta loo qaylsado ambooleyta marka dawladda dhexeba ay soo kala dhex gasho dawladda dhexe ay u eg tahay inay Soomaalida ay ka leedahay meelahan aad joogtiin meelihiinni ma si waxa dadkaasi ay Ethiopia aan ahayn miyana la oran karayn Soomaalidu iyada tirada kuma dhex jirto arrimaha Ethiopia waxa weeyaan Soomaalidu waxay degan tahay
وقومية السدحات يقول بدن ودن كإثيوبيا وحويا largest ethnic group in Ethiopia ورمويا رما قبيل يقول بدن قومية يقول بدن إثيوبيا ورمويا قومية لبعض كحت وحويا ومحرويا قومية السدحات والصومالي ويان قومية أفران وحوي تجرا وتجراي مركا قومية السدحات ugu weyn ugu badan wadanka Ethiopia waa Soomaali dhulka ugu ballaaran ayaga askare gobolka ugu ballaaran dhul ahaana Soomaalida ayaa askare marka dagaalkan u dhaxeeya Oromada iyo dagaalkan u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta waxaa ka dambeeyay dowladda dhexe ka dambaysa saddex arrimood ayaana loo badinayaa inay tahay mid waxa weeyaan dadka yani cafarta ah dadka Soomaalida waa dad muslim oo wada dega weeyaan oo isguursaday oo abti aysan isu ah laakiin la isku dirayo oo la doonayo in ayaga naftigooda dhaxal wareejiyo Ethiopia waxay ku fikiraysaa waxaa kamid ah oo runtii ninkan ku fikirayo waxaa kamid ah inuu soft power ku qabsado wadanka la Djibouti soft power inuu ku qabsado sida uu qabsanaya marka wuxuu ku qabsanayaa wuxuu raadinaya waxa loo yaqaan post-Gele period waxa waaye hadduu Gele meesha ka tago ilaahay ofsado macnaha waxa weeyaan in inta ka horeysa in yani nimanka qoomiyadda qoomiyadan yani la yiraahdo Cafarta in la xoojiyo la empower gareeyo oo markaa yani inta u dhaxaysa khadka u dhaxeeya Djibouti iyo wadanka Djibouti u dhaxeeya Ethiopia in laga nadiifiyo Soomaalida laga nadiifiyo kadib yani waxa weeyaan Cafarta oo markaa xoog badan oo la xoojiyay inay markaa Djibouti qabsato kadibna ku dhawaaqaan waxa loo yaqaan political integration ay ku dhawaaqaan oo marka Ethiopia iyo Djibouti marka inay isku darsamaan siyaasad ayaa laga shaqeynayaa 30 sano ama 20 sano ama 10 sano ama 5 sano soo socoto inta yani ninkan nool yahay ma taabanayaan ninkan ku sheeg waxa weeyaan waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele intuu nool yahay waxaa dhici karta inay ka gabadaan laakiin waxay isu diyaarinayaan post-Gele period markuu isaga meesha ka baxa ama ilaahay ofsado markaasay isku diyaarinayaan taa mid weeyaan midda kale waxa weeyaan walaal yani meeshan yani gobolkan hadda aan ku noolnahay Horn of Africa waxaa jira arrin inta badan dadka wax qora dadka indhaagaradka ah dadka aqoon-yahanada ah ayna ku baraarugsanayn waxa weeyaan niman la yiraahdo Imaaraat ayaa duminaya oo gubaya gobolkan laakiin laguma baraarugsano dadku kuma baraarugsano wadanka Ethiopia wadanka Sudan ayaga ayaa burburiyay RSF nimka loo yaqaan RSF laha oo Xamiiti hogaaminayo 75 dadka yani u dagaalamayo waa dad ajaanib ah oo ka imaaday Niger Mali yani Jad حتى إثيوبيا كيماضي وحيابها لغو شدنا وحكمده قفك معناها يعني دقالما يو إن عروتيسي هاوين كيس يعني أو كيرو مارتي مركا هذا ودركيسا وحلقة ساري لا يهي ودنك مقالة خرطوم وحكرا لغو ساري وينين عروتودي هاوين كودي كانسدين دادك مركيف بربحي مركيف معناها يعني بركعيان يعني وحويان يعني xaafadihii ay ka barakaciyeen dadka wadanka u dhashay ay xaasaskoodii carruurtooda dhigayaan halkaas ay marka ku dagaalamayaan ilaa ay ka dhintaan marka demographic change waxa ay sameynayaan waana dagaal waxyaabo cusub waay waxaana ka dambeeya waxaas imaaraadka ka dambeeya haddana waxa karkaarka Dr. Abiy Ahmed waxa karkaarka weydaarinaya waxa weeyaan waa nimankan weeyaan marka gobolka city la leeyahay kasoo bilow macnaha yani Djibouti ilaa iyo ku keen yani gobolka city leeyahay waxaa wararka aan hadda helayno waxaan maqlay in laga kireeyay imaaraadka laga kireeyay oo Maxamed Daxlaan uu doonayo meeshaas dhulkaas inuu kireysta ilaa 75 sano in gaaray uu kireysto doonayo ayaa hadda wararka hoos aan helayo ayaa muuqata Maxamed Daxlaan muxuu yahay Maxamed Daxlaan waa nin Falastiini weeyaan xilligii Yaasir Arafat wuxuu ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha waxaa lagu eedeeyay xataa Yaasir Arafat inuu dilo lagu eedeeyay waxaa lagu eedeeyay afgambiga ka dhacay wadanka Turkiga inuu qayb ku lahaa ayaa lagu eedeeyay waa nin macnaha waxa weeyaan hadda imanka wuxuu ku nool wadanka imaaraadku ku nool yahay yani nimankan caailada imaaraadku la shaqaystaa waa nin caloosho shaqaystaa meel kasta loo dira imankan wuxuu joogaa wadanka Ethiopia dagaaladan dhacaya oo qaskan Soomaalida lagu sameeyay ethnic cleansing lagu sameeyay qayb uu ka yahay qaybta saddexaad
والله مالينا waxay tahay nimankan xataa yani afarta la leeyahay runtii waxa weeyaan ayaga naftikooda waa dad dhiban weeyaan waa dad dhiban weeyaan waxa weeyaan yani waxaa dhici karta ayaga naftikooda dhulkooda laga barakiciya suurtagal leh ayaa suurtagal ah maartay laakiin hadda lagu jibin hadda lagu jibinayo lagu barakicinayo soomaalida kadibna ayaga la barakicin doono marka saddexdaas scenario ayaa miiska u saaran ninkan miiska u saaran saddexda waa saddex arrimood oo saddex shay waaye oo soomaalida khatar ku ah haddii ay saddexdaa fikradood amba saddexdaa istaraatiijiyad ee uu dhigay abi hadday socon waayaan oo etoobiya ay burbur gaadho waa maxay khatarta ka iman karta ee geeska africa saamayn karta maxay wadanadaysa saamayn kartaa khatartaas imis ayay la eg tahay etoobiya haddii ay sidaan ku burburto ayadoo soomaaliya aysan diyaar ahayn jabuutina aynan diyaar u ahayn kenya aynan diyaar u ahayn waxay keeni kartaa khatar gobolka ku baahday keeni kartaa saddex tusaale ayaan ku siinayaa oromo waa largest ethnic group in ethiopia waa qoomiyadda ugu badan ethiopia weeyaan haddii 5 milyan oo ka mid ah oo micnaha qaxooti ah oo hub yar wata hubka yarka wata يعني light weapon and small weapon light weapon wata ay ka soo gudbaan xuduudka Kenya example aydan ognahay yani Moyale Marsabit Sielo ila Tana River oo ka tirsan wadanka Kenya waxa degan waa Boro weeyaan waa Oromo weeyaan af hal luqad ay ku wada hadlaan marka waxa dhici karta marka amniga wadanka Kenya inuu qalqal gala oo macnaha waxa weeyaan dhibaato xor leh wadankii inuu burbura suurtagal leh Djibouti haddii ay wadanka Djibouti waa dal yar oo dad 1 milyan ka yar ay ku nool yihiin haddii 3 milyan ama 5 milyan oo Ethiopian ay galaan demographic dhan isbedelaya wadanka Djibouti isbedelaya macnaha waxa weeyaan Djibouti aan naqaanay ma noqonaysa Soomaaliya for instance waa 15 milyan weeyaan wadanka burburaya waa wadanka labaad ee Afrika ugu tirada badan waayo wadanka hadda iminka burburaya 110 milyan lagu qiyaasay ilaa 130 milyan lagu qiyaasaya haddii 10 milyan kamid Soomaaliya ay gasho oo qaxootiga hub ay la galaan wada Soomaaliya ognahay xuduudaha Soomaaliya ku teeda kulli inaan la waardeynin wax waardiisan oolin waxa isbedelay demographic Soomaaliya isbedelaysa يعني waxa weeye barig Africa waxa weeyaan wuxuu noqonayaa marka chaotic wuxuu noqonayaa yani fawda ayuu noqonayaa marka sida kaliya imanka Ethiopia lagu badbaadin karo waxay tahay iyadoo prime minister Soomaaliya meesha uu tago sida kaliya lagu badbaadin karo taa way maxay inaan xartu ma aaminaysa Tigray ba aaminaya nimanka la Oromo ma aaminaysa Amhara Tigray marka the only compromise candidate waxa weeye Ethiopia lagu badbaadin kara in nin Soomaaliya ama cagtar ha noqdo ama aadan maartay yani waxa weeyaan ama aadan ha noqdo inay macnaha waxa weeye prime minister laga dhigo oo marka dalka saa lagu badbaadiyo waa the only option Ethiopia maanta u banaan otherwise Ethiopia waxay ku socotaa oo runtii qaadaysaa raadkii macnaha waxa weeye Yugoslavia marka khatarta waxaad leedahay ka iman karta ayaa ka ballaaran waa in maaragtay Ethiopia badbaadadeeda la galo in la suga ma waxa weeyaan inay arrintaas xaliyaan weeyaan maxaa yeelay imanka Dr. Abiy Ahmed sida wax ku wada hadda si wanaagsan ma ahan waa si gobolkan yani dhibaato fara badan u keeni doono gobolkan wuu huri doonaa gobolkan wuu dubi doonaa ayadoo maanta ognahay walaal Maxamuud yani Suudaan inay burburtay Soomaaliya ay burbursan tahay Ethiopia maanta xaalkeeda uu cakiran yahay oo runtii burbur ay qarka u saaran tahay aydan ognahay xaaladda dhaqaale maanta Djibouti ka jirta garanaysa maanta og tahay oo wadanka dhaqaalihiisa runtii ilaahay xaalkiisa og yahay iyadoo maanta yani adduunyada aan ku noolnahay global recession uu jiro in Ethiopia maanta habkaas ay u burburto waxa weeyaan arrin aad iyo aad runtii oo murug u la weeyaan oo arrin walwalkeeda la weey walaal Dr. Abiy ayuu maanta dhageysan karaa ayaase dhegtiisa leh waxaan ognahay in Mareykankii iyo dadkii uu dhagaha ka laabtay ayaa maanta wax u sheegi kara ayuuse dhageysan karaa والله horta dhegtay Abiy Ahmed cilada uu yeesho waxa weeyaan political philosophy balha u difaaca ninkan capitalist ma ahan communist ma ahan maanta wuxuu la dhans garaynaya ma la cayaaraya Mareykanka
بري وحول عياري روشكا بري الدم وحول عياري تشاينا يعني مالها political stability مالها نينكان political stability لماها و very slippery guy يعني political philosophy الدفاع مالها the only person وحكى بغلا ساينس لي و ام بي زد محمد بن زايد انو مالينيا marka ninkani waxa weeyaan mushkiladda haysta waxa weeyaan yani wiigan wuxuu la cayaarayaa oo yani harkaysa Mareykanka soo dhawaadeen haddana wuu ka boodayaa wuxuu aadayaa ruushka BRICS oo aadayaa global south buu haddana tagayaa waa ka soo noqonayaa haddana carabaha uu galayaa waa ka soo noqonayaa yani waxa weeye Ethiopia waxa maanta dhibka haysta waxa weeye yani hogaamiye aragti dheer la fog leh ma laha dhibka jira maanta Ethiopia taas weeyaan waana wadan ballaaran oo dadka maanta Afrika ugu badan qaaradan aan ku noolnahay Afrika wadanka labaad ugu dad badan waay haddii marka loo waayo qof macnaha hogaamiyo aragti fog la waayo macnaheeda waxa weeye wadanka waxa weeye saameyn xoog leh ku yeelanaya burburka bariga Afrika maartay wadamada bariga Afrika ku teedan burbur xoog leh ayuu runtii ku reebayaa marka Ethiopia waxay noqotay the source of conflict and tension of Horn of Africa noqotay maartay tensionka meesha ka soo baxa oo ka soo burqada maartay yaay noqotay ayadoo dhibkaas wadanka uu haysto oo dalkaas maanta xaaladiisa waxa kiran tahay ay haddana wuxuu leeyahay waxa rabaa inaan xoog ku qabsado magaalada yani waxa lug haye oo rabaa inaan ciidan geysta oo doonaya macna waxa weeyaan inaan dekad meeshaas ka helo oo doonaya uu ku leeyahay walaal karin Dr. Abi waxa uu sameeynayaa inuu indhaha dadka Ethiopia uu meel kale u weeciyo oo dagaalada uu sidaa ku baabi'iyo miyaan la oran karay waa farsamo waa badan tahay maxamuudow waxay u badan tahay inuu leexinayo attention umadu leexinayo meel kale uu leexinayo walaal fiiri hal shay aan maanta inaan ku sheego wadanka la yaqaan Chile iyo Bolivia wadanka la Bolivia had ayaa waxa dhacday 1800 xawaa bay ahayd waxay ka kireen degad bay ka kirayeen waxa laga kireeyay Chile baa laga kireeyay 45 sano degada laga kireeyay maxaa dhacay marka 45 sano ka bacdi Chile waxay sheegatay dekada inay daladay sheegatay dagaaladii markay dhaceen way ku guuleysan waayeen marka hadda Bolivia waa wadanka maanta malaha dekad male marka waxa weeyaan dekada la kireysanaya la leeyahay macnaha waa lahaansho weeyaan dekadaasi kirada waa lahaansho haddii dekada la kireysto macnaheeda waxa waaye waxa lagu dhaqayaa qaanuunka iyo sharciga wadanka kireysta ayaa lagu dhaqayaa laguma dhaqaayo qaanuunka iyo sharciga wadanka oo laga kireysto laguma dhaqaayo marka haddii marka dekadii la kireeyo haddana wuxuu ku doodayaa inuu ciidamo neefi ah oo meesha geynayo ayuu ku doodayaa macnaheeda waxa weeyaan haddii arrintaas ay hirgasho macnaheeda waxa waaye waxaa la kala gooyey Djibouti iyo Soomaaliya la kala gooyey marka waxa dadka Soomaalida ee ku nool Djibouti halis bay ku jiraan kayda aad bay halista ugu badan ayaga galaya ayaa galaya marka ninkani ha ka noqoto waxan nafla caarinimo ha ka noqoto ama ha ka noqoto inuu doonayo in attentionka ummadda meel kale u leeyahay noqoto laakiin waxa xaqiiqo ah oo dhab ah Ethiopia maanta inay xaalad akiran ku jirto oo murugsan oo ka xun xaaladda Soomaaliya ka xun laakiin aysan fahamsanayn dadka Soomaalida aysan fahamsanayn dadka Djiboutiyankana aysan fahamsanayn dadka kaliya ee fahamsan waa Eritreanka waa fahamsan yihiin laakiin Soomaalida ma fahamsana Djiboutiyankana ma fahamsana xaaladda maanta ninkan uu ku jiro ninkan xaalad adag buu ku jiraa dalkana xaalad adag buu geliyay marka sidii looga baxana ay runta u baahan tahay in la iska kaashado u baahan tahay ninkan asoo 14 jir ah ayuu ciidanka ku biiray 14 years uu jirku ciidanka ku biiray marka Giles wuxuu ahaa Giles soldier buu ahaa marka wax la dila wax la barakiciyo buu garanayaa oo noloshiisa dhan ku soo qaatay marka tiiba u muuqata taana maanta imanka kaba shaqaynaysa wadanka Ethiopia xog ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdulwahaab intaad maaragtay barnaamijka caawa aad nagala qayb gashay noona macnaysay dhibaatada amba halista ka soo socota dagaalada hoose ee ka socda dalkaasi Ethiopia mar labaad xog ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdulwahaab walaal aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaya arrintaa thank you so much
قبكم القاتا قدر الميلا إلى مدينة قبكم القاتا قدر الميلا إلى مدينة وعدم بقرارو وذكار قراراتو وذكر بيتي وعدم بقرارو وذكار قراراتو وذكر بيتي كقلت ذئت مانتي زيقو ذا أودعان جمايلي مايان كرات ضويو كقلت ذئت مانتي زيقو ذا أودعان جمايلي مايان قوبتي كسيكا قعنتني قد كذا خذت بيكو قبايا